raabka oo dhex maraya raabarka weyn ee alfanaan Ilka Case iyo da'yarka muddooyinka dambe saaxada fanka qabsaday ee Sharma Boy. Haddaba suugaan raab ah ayay labaduba hawada isku marsiinayaan. Maxay tahay xiisadan cirka isku sii shareeraysa ee u dhaxaysa Ilka Case Qays iyo Sharma Boy? Warbixinteenan ayaan ku bilaabi doonaa xogo badan oo ka qarsoon daawade ee muuqaalka like saar lana wadaag saaxiibadaada ku mahadsanid daawade. Waxaa soo shaac baxay muddooyinkan dambe dagaal xagga fanka ah oo u dhaxeeya labada fanaan ee kala ah Ilka Case Qays iyo Sharma Boy, iyadoona hawada ay isku marsiinayaan suugaan kulul oo karbaash ah. Aan ku horeyno, Sharma Boy ayaa bilaabay oo ku riday Ilka Case Qays madfac inaba aan caadi ahayn. odore waxa tahay iide noloshada dhanno dadan meelaha ku dhimo ordadan am sultan horan ku irideeno dadan kameelafan iga dhaafsan waxaad cabtaa cabitaan kadib ba ismoo dacaan rabkiyaa ku bare hortiyaa kuu qore dad kugu dare macalinkime iyaa kala de maskaxda waan baaraa everyday xuseen gaduudu saxiibkume wax u sheegtay. Geesta kale, Ilka Case Qays oo lagu naanayso boqorka raabka ayaa isna gantaal karbaash ah hawada u mariyay Sharma Boy. dhurahanadu horta yaa ibara wasiir badnaa horta ma dhuucilba daliil badnaa horta ma sheegadba dhegdheg badnaa ma dhashi dhurwaaga ma dhurbaaxa garaca ha ooye maska dhajiga masgaluudmiya dhagaba maraha ee ma dhoohana burjigayga tab reer aaga xaalku markii uu halkaa marayo, karbaashka labada fanaan ayaa cirka isku sii shareeray oo Sharma Boy ayaa soo qaaday hees kale oo u eg in uu ku karbaashayo Ilka Case Qays. iswaalwaal ama igu daal maba eega gadaal waxaan wadaa dadaal ha igu lumin dabaal iga marbaal yow iga marbaal muusigaygu waa suldaan waxaan la tartami wow hey dhagool waxaan dhashay gool ma ogoli dool shacabka iyiri eri ari camal buri uf wuu soo uri afkiisa guri waa duli waryaa muli muli qashinka qaad guli amarka fuli haddii kale waa ku mudiyow. Dhinaca kale, Ilka Case Qays oo Soomaalidu ay si aada u yaqaanaan karbaashkiisa ayaa soo riday hees uu si toosa ugu karbaashayo alfanaan Sharma Boy, heestaa oo uu magac uga dhigay Nafaqayso. erayada heestaana waxaa ka mid ahaa: yaad u faanaysa warya ilka joogsa warya guguura warya nafaqaysa warya mamada xudhibaaciya niina miya kashimalahmaya leefaayo miya sitay manooto kabalyeeri miya dhanka bidix dhanka milig horofolod miya xaabsada miya asturaayo miya milka sheeg miya miiraayo miya dibu deg baaster yaa ku dhalay baaster ii qaba shaarka balidaawa baaster darbuunka orofuul balidaawa baaster. qaybta dambe ee heesta ayuu geliyey iyada oo uu socdo muusiga hadal caadi ah oo fanaankan markii uu wax karbaashayo lagu yaqaano. waraa horofow filibiina kaa dhigaa filibiin afartan beri tabliiqaan kuu diraa tabliiq. ugu dambeyntii, alfanaan Sharma Boy ayaa isna hees muuqaala soo sameeyey oo isna uu ku karbaashayo Ilka Case Qays. yacqub furjini adma basaa'i galoy dabka dishe maanta ana shida xagga bagashe marka maqasho meesha ku dhashe qalad baad dishe beertaana ana fasha magashe gooshaan ka dishe yow gooshaan ka dishe xagga bagashe marka maqasho meesha ku dhashe qalad baad dishe beertaana ana fasha magashe gooshaan ka dishe yow gooshaan ka dishe no masir iga hore beer hadii kala hoofeer soo bareer ama iska dareer ma waxaa tahay waryaa geed mareer afkaga waxa ka da'aya waa dhareer waa dhareer. saamaynta social mediaha iyo labadan fanaan ayaa haysta baraha bulshada oo inaba aan caadi ahayn oo social mediaha ayaa si aadan looga hadalhayaa daawade. haddaba mucjisadii raabka ayaa ka taagan baraha bulshada daawade ee aragtidaada nagula wadaag qaybta commentiga. muuqaalkana like saar ku mahadsanid daawade.